السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulanti wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaal cusub. Aamusnaantu waa luqadda ay adeegsadaan dadka xigmadda iyo awoodda u saaxiibka ah. Maanta waxaan ka hadlaynaa faa'iidooyinka iyo awoodaha aad ka dhaxli karto aamusnaanta. Waxaan shaki ku jirin in hal-abuurku uu yahay qayb muhiim ah oo nolosha ka mid ah. Sidoo kale aamusnaantuna waxa ay qayb muhiim ah ka tahay geedi socodka hal-abuurka. Aamusnaanta kadib ayuu Allah subxaanahu wa ta'aala sahlaa amuuraha waaweyn. nabiyullaahi zakariya markii uu Allah subxaanahu wa ta'aala ugu bishaareynayay yaxya waxaa calaamad looga dhigay inuu 3 maalmood aamusnaado oo uusan dadka la hadlin. waatuu nabi zakariya bishaareynta kadib Allah ku yiri rabbi ij'al lii aaya, rabbiyow itus aayad aan ku garto inaad wiil isiin doonto. markaas Allah subxaanahu wa ta'aala waxa uu ku yiri qaala aayatuka alla tukallima an-naasa 3 layaalin sawiya, aayadaadu waa inaadan dadka la hadlin 3 maalmood. aamusnaanta ayaa looga dhigay calaamad taasoo kuu muujinaysa qiimaha ay leedahay. aamusnaanta aan ka hadlayno ma ahan midda isla weynida iyo carada ku jirto ee waa aamusnaanta fikirka iyo fiirmada wadata. aamusnaantu waxay ku siinaysaa deganaan iyo caqli. qofka markii uu in muddo ah aamusnaado maskaxdiisa ayaa godlanaysa waxaana ka soo burqanaya afkaar aad u qiimo badan. raggii hore ee wanaagsanaa jiilkii dahabiga ahaa ee saxaabada iyo dadkii ka dambeeyay maxay ka dhaheen aamusnaanta. cali bin abi taalib radiyallahu canhu madaxweynihii afraad ee dowladda islaamka waxa uu yiri aamusnaantu waxay keentaa haybad. abu dardaa oo ka mid ahaa saxaabadii rasuulka waxa uu yiri barta aamusnaanta si la mid ah sida aad u barataan hadalka. sidoo kale isla abu dardaa wuxuu yiri afkaaga ugu garsoor dhagahaaga maxaa yeelay wuxuu Allah kugu abuuray 2 dhagood iyo 1 af. sababtuna waa inaad wax badan dhageysatid wax yarna aad hadasho. yacni waxaa loola jeedaa intuu hadalkaaga badan lahaa dhageysigaaga ha bato, taasna waxaa ka dhalanaysa aamusnaan. aamusnaantu waa xalka ugu fudud ee lagu xalliyo khilaafaadka dadka soo kala dhexgala, taas oo ay daawada u tahay in laga aamuso, gaar ahaan midka labada isqabta soo kala dhexgala. in haddii mid iyaga ka mid ah uu xanaaqsan yahay erayo aan wanaagsanayn uu afkiisa ka soo baxayo, kan kale uu aamuska ku dadaalo, sababtoo ah qofka xanaaqsan qaylada iyo canaanta nafsi ayuu ku dareemayaa wuuna iska iloobi doonaa muddo kadib. laakiin haddii labadaba isla buuqaan waxaa ka dhalan doonta natiijooyin aan wanaagsanayn. waxaa xaqiiqo ah oo ay adag tahay inaad aragto qof caaqil ah haddana hadal badan. luqmaan al-xakiim oo aan wada maqalno xigmadihiisa suurad qur-aanka ka mid ahna lagu sheegay ahna nin ilaahay xigmad siiyey ayaa dardaarankii uu siinayay wiilkiisii waxaa ka mid ahaa waqsid fii mashika waqdud min sawtika ina ankara al-aswaati la sawtu lxamiir. inuu si wanaagsan u socdo oo uusan isjejebin marka uu soconayo, codkiisana uu hoos u dhigo, taasoo ay ka dhalanayso deganaan iyo aamusnaan. rasuulkeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo uu ilaahay xigmad siiyey ayaa waxa uu ku dardaarmay qofkii ilaahay iyo maalinta qiyaamaha rumaysan khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso. waxaan ku noolnahay xilligan caalam aad u buuq badan, caalam aamusnaantu ku yar tahay, dadka intooda badanna xigmaddii ay ka tageen. waxaa dadka go'aanada qaadan raba lagula taliyaa inay aamusnaadaan muddo ka hor inta aysan qaadan go'aanada. waxaa hubaal ah in qofka hadalkiisu badan yahay uu sidoo kale qaladaadkiisa iyo gafafkiisaba badan doonaan, taasoo keenaysa inay dadku yiraahdaan qofkan waa doqon. ahow mid ku dadaala aamusnaanta in ka badan inta aad ku dadaasho hadalka. waxaa la sheegaa in qofka marka uu dhasho uu u baahan yahay 2 sano si uu u barto hadalka, laakiin uu u baahan yahay sanado badan si uu u barto aamusnaanta. filosofkii weynaa ee Pythagoras ayaa yiri doqonka waxaa lagu gartaa hadalka, caaqilkana aamusnaanta. haddii aad ku dadaasho aamusnaanta hadalkaaga qiimo ayuu yeelanayaa, dadkana way xiisayn doonaan inaad hadasho. markasta oo ay badato aamusnaantaada waxaa badanaya heerka fikirkaaga, hal abuurkaaga iyo xalinta dhibaatooyinkaaga. haddii ay dadka qaar ku faanaan quruxda hadalkooda, adiga waxaad ku faantaa quruxda aamusnaantaada. haddaba aamusnaantu waxay kaa saacidaysaa ama aad ka dhaxlaysaa haddii aad barato inaad noqoto qof deggan oo miisaaman.
intaas ayaan jeclaystay inuu muuqaalkeenu ku ekaado maanta. fadlan haddii uu ku cajabiyey mowduuca, like saar, asxaabtaada kalena la wadaag. intaan ku kulmayno mowduuceena xiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.